kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay grammar waa naxwe waa accessibility of a sentence waa aqbalitaanka jumlada sida loo aqbalo jumlada ayaynu qaadan doonaa waa cashar grammar ah la soco casharka oo dhammaystiran haddaba ma u baahnayd barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weyday chance aad ku tagto iskuul ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. And waxaanu sentence is an arrangement of words that make complete sense. It must be meaningful, it must at the same time be acceptable. Kelmadu waxa weeyaan isku habeynta erayo say u sameeyaan macna dhammaystiran sidoo kale waa inay noqotaa mid la aqbali karo iyo mid macna sameynaysa. Marka aqbalitaanka baan qaadan doonaa maanta waa maxay aqbalitaanku? Accessibility of a sentence aqbalitaanka jumlada. A sentence jumladu must look acceptable waa in uu muuqataa mid la aqbali karo. A sentence jumladu must look waa in uu muuqataa acceptable mid la aqbali karo waa in uu muuqataa to the speakers ay aqbali karaan to the speakers dadka ku hadla of the language dadka ku hadla luqadu mid ay aqbali karaan waa inay noqotaa. Look at this example tusaalayaashan eeg. John killed a stone. John dhagax ayuu dilay. John killed a stone. John dhagax ayuu dilay. wax la aqbali kara maaha qof dhagax dilay wax la aqbali karo maaha ama jumlad la aqbali kara maaha. My brother ate the moon walaalkay dayaxa ayuu cunay wax la aqbali kara maaha qof dayaxa cuna ma jiro. My brother ate the moon walaalkay dayaxa ayuu cunay this is not acceptable wax la aqbali kara maaha. The tree walking on the road geeduhu waxa ay lugeynayeen wadada geedadku uma lugeeyaan ay way taagan yihiin this is not acceptable tan ma aha mid la aqbali karo. These examples tusaalayaashani they do not make ma sameynayaan any sense wax micna amba wax nuxur ah ma noo sameynayaan. These examples tusaalayaashani they do not make inooma sameynayaan anaga any sense wax micna ah are not acceptable lama aqbali karo are not acceptable lama aqbali karo. Sentence jumladu must look waa inay u muuqataa acceptable mid la aqbali karo to the speakers dadka ku hadla of the language luqadu mid aqbali karaan waa inay noqotaa baan niri. Look at this example tusaalayaashan John killed a stone John dhagax ayuu dilay. My brother ate the moon walaalkay dayaxa ayuu cunay. The tree walking on the road geeduhu waxay lugeynayeen wadada marka waad aragtay lama aqbali karo waxan. And this example they do not make any sense and not acceptable lama aqbali karo wax xorana ma sameynayaan. halkaas uu nagu jooga casharkeena inta next time. Assalamu alaikum. Arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo oo waxii wadankan